xuso oo magacaaga iyo sharafkaagaba kor lagu sheego ayaa weyn waana ta ilaahay quraanka inoogu tilmaamay tabaaraka wa tacaala utlu ma uhiya ilayka min kitaabi rabbika ilaahay kitaabkiisa akhri oo raac salaadana toosi salaadu dadka tukada xumaantii iyo dunuubta foosha xun bay ka reebtaay kadib waxa la wala dhikrullahi akbar ilaahay xusida oo xusaya adoonkiisa ba ka weyn xusida adoonku ilaahay xusayo laba xusid way mid adiga la iimaanay mid alla timid waxa ka dhalanay in ilaahay ku xuso labada ka weyn in ilaahay ku xusaa ka weyn saas daraadeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu rabbigi ka wariyay inuu alla yiri tabaaraka wa tacaala anugu waxaan ahay adoonkayga malihiisa agtiisa wuxuu iga malaysto ayaan agtiisa ahay hadduu i xuso isagoo keligii i xuso aniga gooni ahaantayda u xusay hadduu isagoo dad dhex jooga dhexdooda igu xusana aniguna kuwa uu ugu xusay dhexdooda kuwa ka khayr badan baan dhexdooda ku xusaya wa malaa'ikta rabbi tabaaraka wa tacaala iyo makhluuqa qiimaha badan ayuu ilaahay dhexdooda kugu xusaya magacaaga yaala meel qiimo badan way لأن ربك قد حسن تبارك وتعالى حسك ربك كحسي كشيغيو بامرك كوين أديك هذا ولا ذكر الله أكبر سيد عبد الله بن عباس كسوغا بسند صحيح نعم أحبتي في الحقيقة لو لقيه لكراه إن ربك كو أمانه أو كشيغو وملائكة دحيدا مقع قيمة أتكو يالتو وربك أكتيس كرامية شرف أتكو يالتو معاك قيمة بدن maxaa lagu bedelan karaa wax ka qiimo badan ma jiro saas daraadeed rabbiga xus si aad qiimo u yeelato quraanka kariimka wuxuu kaloo inoo sheegay oo aad u mudan in la tilmaamo liibaanteenu waxay ku jirtaa ilaahay xuskiisa inaan adduunka liibaano aakhirana liibaano Allah wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi salaada jumcada marka tukataan dhulka ku faafa oo ku baaha ودنيهن كلا آذى طيب دناها النجيبان كلا آذى صلاة جمعنا واتوكني قناع سيبان لقلي ضد فلاشية بير فلاشة قلي ضد حمالة شقلي ضد حول الراعدي دنيه الدنيا ذا لكلا آذى ماشا محام صمينا مرك واذكروا الله كثيرا إن بدن إلهي حسى لعلكم تفلحون سادوا الليبانتان تجارة هذا ساج كيبا لقيتك صلاة دينا ولا قتي ganacsigaagii baad dhex gashay ilaahay xus in badan waa liibaaniye xamaalashaad ku jirtaa ilaahay xus in badan beer baad falanaysaa ilaahay xus in badan dariiq baad socotaa ilaahay xus in badan xafiiskaagaad fadhidaa ilaahay xus in badan la'allakum tuflixuuna siyaadu liibaantaan sidaas rabbigan ilaahay tabaaraka wa tacaala ogow hadda salaatii jumcada laga gadoomay oo cibaado weyn baa laga gadoomay adduunkiinii ganacsigiinii shaqadiinii galaa la yiri halka maxaanu sameeynaa markaan ku jirno wadhkurullaha katiiran la'allakum tuflihun ilaahi xus laana aldoonka ilaahi wuxuu ka rabaa xaalad walba inuu la xus fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum idinkoo taagtaagan idinkoo fadhiya idinkoo dhinac u jiifa intaba ilaahi xus tabaaraka wa tacaala xuska rabbigan marka waa liibaan ya ayuha alladina aamanu إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون مركز عدوغينا لكنا سقنادا إلهي حسكي سنة بضية والليبان سنة قول باد قاري سانة مالو المركز الليبان باكوشير تمركز إلهي حسن تبارك وتعالى جنة الربية الدنب دافكي سالوغو قانا وعرب كاغو انتو ذكر إلهي الذنوب تادوا وهوبانيسا وكادادانيسا saas daraadeed baa rabbigan tabaaraka wa tacaala dadka uu u dambi dhaafay ajir weyn u diyaariyay markuu sifaadkooda tirinayay wuxuu ku daray wadhaakiriina allaha kathiran wadhaakirat ragga in badan ilaahay xusa iyo dumarka in badan ilaahay xusa kuwaasi a'adda allahu lahum maghfira ilaahay wuxuu u diyaariyay dambi dhaaf ajir weyn waa u diyaariyo jannada rabbiga tabaaraka wa tacaala maxaa ka qiimo badan wala leeyahay amal fudud amal aad fudud وهذا أجر بدن بل حديث تقاركود waxay tilmaamaysaa amal ilaahi loogu dhawaado oo dhikriga ka qiimo badan ma jiro xadiidka abi darda ahmed iyo qeyrkii soo saareen baa nabigeena wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam war ma idin warrama war ma haysaane ma idin sheega acmaashaad sameeynaysan ta ugu khayr badan naam darajaadkiinana ugu sareynta badan
maliigiinna iyo boqorkiinna agtiisana ugu dahirnaanta badan oo idinka khayr badan inaad dahab iyo qalin aad sadaqaysataan waa lacagaha kuwii ugu qiimo badnaa iyo macdanta kuwii ugu qiimo badnaa dahab iyo inaad silfar sadaqaysataan oo la baxdaan ka fadli badan inta kaliya ma aha ka qiimo badan oo ka fadli badan inaad cadawgiina la kulantaan oo idin laayaan idinkuna aad laysaan ka fadli badan war ma idin sheega war ma haysaane naam oo war qaali ah markaasay saxaabadu waxay rasuulka ilaahay muxuu yahay waa la yaab muxuu yahay intaasoo dhawac ka fadli badan muxuu yahay nabigu wuxuu yidhi sal alayhi wasallam dhikrullah ilaahay xuskiisa waa ya ilaahay xuskiisa waa laakiin yaa la waafajin waa dadka ilaahay xuskiisa badiya waxay ku jiraan dadka saabiqiinta ee adoomada ugu horeeyay ku jiraan ee ilaahay tilmaamay was-saabiquuna as-saabiquuna ulaa'ika al-muqarrabuun dadka hormaray qayrkood ka hormaray kuwaasi waa kuwa ilaahay agtiisa laga soo dhaweeyay waxaa ku jira dadka dikrigoodu badan yahay nabigeenu kama fi sahih muslim min hadith abi hurayra maalmaha kamida ayaa buur buu arkay jumdaan la yiraahdo markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam buurtani waa buurtu jumdaan sabaqa al-mufarridun dadkii qayrkood ka dhaxbaxay kuwaasi waa hormareen saddex goor buu ku celiyay markaas ay leeyihiin rasuulka ilaahay الذاكرون الله كثيرا والذاكرات والرجع إلهي آذ حصة يضمرك آذ إلهي حصة سيداس درادي دول ليال إلهي حسكي ستبارك وتعالى الإيمان بكجرت آخرك لي معها الدون كمرك عرب كاغو برطين إلهي حسكي سبديسو الرماها قوال فضوضين يا قلبي قاقنا ولا دجينيا حسلوني با دريميسا راحت هليسا عريس بدن با كادغيا سازدراد ربك وحليه الا بذكر الله الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ذكر الله بقلوبك حسيشا الا بذكر الله تطمئن القلوب ما حولكم حسيش الدون كودن هدي لا سيما دغيا قلبك نعم boqortooyadii iyo kuraasta adduunka jirto dhan hadii gacanta laga galiyo qalbiga ma dajinayaan waxaad rabtay hadii lagu siiyo shahawaadkaaga qalbiga ma dajinayaan laakiin maxaa dajiya ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub huna sir halkan ay sirtu ku jirtaa meeshaasa qalbigu ku xasila oo ku khushuuca oo ku raaxaysta markuu rabbigi tabaaraka wa taala xusayo xusuusanayo markaasuu qalbigu nasanaya oo raaxaysanaya ruuxuna dareemaya naftiisa iyo jirkiisuba dareemaya sidaas daraadeed walaalayaal nicmada iyo barwaaqada iyo khayrka faraha badan wuxuu ku jira ilaahay dhikrigiisa inaynu badino xilli walba iyo xaalad walba gaar ahaan maalmahan aynu ku jirno inay dhikrigeen ilaahay aan badino tabaaraka wa taala waa wax carabkeenana ku fudud ميزانك آخرنا كعلص الله الرحمن كأنا أوتشعل يهي سيد النبي صلى الله عليه وسلم وكيل حديث صحيحة في صحيح البخاري لبك كلمة إلهي واتشعل يهي ميزانك نواكو علوسيهن عربك نواكو فضديه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نعم فضودا ما بدري ما يسد يا ما بدري ما يسد شقا كامه رستاقيان وما باهنا إنا دو فريسته وما باهنا إنا دويس قبطو وما باهنا إنا حتى ظاهر تهي يا في كل الحالات عربك إنو دقاق كلية أضو شقي سنة يو أديقنية فضوضا أو عربك كفضوضا صائتا إلهينا واتشعلي هاي ميزانك آخرنا وكعلوسيهن هل كاوي ميشا لغوك لتقول الله يسكور دافاي ما ننت قيامة ولا ليال مركي إلهي الله تبارك وتعالى الدون كان اللي سقوتيو لغا دقاقو ما ننكاسو كل اللي وضع عبسنا يو حتى إلهي تبارك وتعالى الرسوشي سي أصادري كوي أغفض بنا أيا مالك عبسي قبل ربي سلم بيليه ربي يو نبدقلي ربي يو بدبادو نيوال بمركي خلائق ذو كعد صدان إلهي أغطقو أو أشفاعه نفسي بوليه ما أنت نفطيد إلهي ما هو تيكره maalinkaasoo khalqiga dhan wada baqayaan oo la cabsanayo waxa ugu rajab badan oo cadaab ka badbaadiyay ilaahay caridiisa dhikriga ilaahay waa nabi maxamed baa sidaa yidhi salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ma jiro camal bini aadan iyo ruux uu sameeyo oo maalinta qiyaamada
looga rajo badan yahay inuu cadaab ka badbaadiyo dhikriga ilaahay ma jiro nabi sallallahu alayhi wasallam waxa ugu rajo badan oo cadaab kaga badbaado waa dhikriga buu nabigu yaxmad yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sidaas daraadeed akthiru min dhikrillah ilaahay dhikrigiisa aynu badino oo carabkeena aan barno oo nolosheena qayb muhiim ah ka noqdo hadii ay dhici weydo oo ilaahay dhikrigiisa aad kaga mashquusho adduunyada oo xoolahaagu ku mashquuliyaan oo ganacsigu ku mashquuliyo oo adduunyadaasi kula tagto waad khasaartay markaa rabbigeen baa saa inoo sheego rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala yaa ayuha alladina aamanu mu'miniintii oo ku ilaahay rumeeyo la tulhikum amwalukum wala awlaadukum an dhikri illah xoolihiina iyo carruurtiinu yaysan idinka mashquulin ilaahay dhikrigiisa ruuxii ka mashquulisana waman yafcal dalika ruuxii sidaa yeela oo arrintaa ku dhaca فأولئك هم الخاسرون وكوا خساري بالله تبارك وتعالى هداد خسارة ما قشدت كاسو كدعي ساس دراديد الدنيا دادي آخرة دادو وإسلا سعون كراني أدو أدون كاغا وطا آخرة كدحوت ذكر الله كدحوت عباداتك إلالي واجبك إلالي خيرك كددال تاسا واحد كغاري كرتا الدنيا آخرة وإن الليبانتو بإذن الله تبارك وتعالى ما المهن قارهان إن كتشيرنو ذكرك بدية أو حسك بدية أو قرآن حسك بدية أو صونك أو صلاة أو عباداتك أو صدقة إيك عنتادو إني فرنتو شيب كاغو إنو فرمو أو خيرك أو فرمو ما الموي خيرك الله ترتمو سيداس دراديد وإني نددال ولا ليها أيها الإخوة في الله إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى به ملائكة المقدسة مسبح بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك